Assalaamu calaykum. Waa mar kale iyo barnaamijkeena ma ogtahay. Barnaamijka ma ogtahay maanta wuxuu ka casuuman yahay dalka Shiinaha ama China. Dalkani China ayaa ah dad aad u ballaaran, dadkiisana aad u tiro badan yihiin. Ku dhawaad dalkani China ayaa waxaa lagu qiyaasaa asiga iyo qaaradda Afrika inay iska dhow yihiin dad ahaan iyo bad ahaanba. Dalkani ayaa wuxuu caan ku yahay cunista xayawaano kala duwan sida dooliga, dibqalooca, bukulaasha, kulli xayawaan. Maanta barnaamijkeeni wuxuu ku saabsan waxaa laga casuumay waddanka China. Akhyarta boorsooyinkaada soo xiro, jaakadaada ka soo tagin, baasaboorkaada soo qaado. Aniga adiga salaam halka iyo China ma tagayna soo fuul diyaaradda. Baskana diyaaradda ha ka dhicin dalka China ma balan ah. Alxamdulillah ilaahay inuu nabad keenay dalka China. Wuxuu abuji weydii Omar khayrta weligiin dhagaata taaga. Magacaygu waa Cabduuli Cumar Fatxi. Ku soo dhawaada barnaamijka ma ogtahay oo aan aadi doono mar dhow suuqa China iyo khudaarta iyo hilibka waa la cunaya soo fiiri doonaa. La socda barnaamijka ma ogtahay. Haya akhyarta waan joognaa maqaayadii maxaad dalbanaysiin. Horta gabadha in joogta aragna waa ay yaabay waxay dalbatay fiiri ninka hilib uu cunay laakiin gabadhan ilaa waxay fiirisay waxay dalbatay ilaa arkabo. Dadkani caadi ma runtii waa bahal galeen waa kana waa la duwanaa wax walbo waa kana waa la cunaa tartiib fiisa loo duway fiir waa kana waxaan dawla maslada si loo habay fiiri yab coodkiyo ya sana macquul mahan bisigo wara khayr ay kam cunlad madoogan fiir waa dib loo cunlad ay daawade oo ujeedaan dalkan waxa waa tagi waa tilaabsiyay aniga waxaan ilaahay nama bara hay qodobkay ku soo jiitay xayawaankii aad dalba lahayd dal aad diinash ku noolaan lahayd sidaas iyo amaana Allah bas waa iwad Soomaalida cilaan inta ma anfacaysaba diyaarad bas waa laabana akhyarada idinka joogsan jooga aniga waa baxay diyaaradda waracun dhanka iyo Soomaali baan u laabtay sidaas iyo amaana Allah iyo la socda barnaamijkeena xigta iyo la yaabka ma ogtahay.